koomaan galay waa lay quraan saaray maalin 2 jeer baan kooma galay bishi kala 4 jeer baan qalalka isku arkay quradaas oo ku taalay lafta hoosteeda ka baxday maskaxdana dusha ka saareyd muddo ay qabtay Soomaali Suudaaneys baa laygu qalay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waan fiicanahay alxamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومن حسن عيسى كومان قلي والي قران ساري أدنا وانكسو بحي مالين 2 jeer baan كومان قلي أدنا بيشي كلا 4 jeer baan qalalka isku arkay markaas bahash waxaa lay saaray scam-ka bura maskaxda iyo bahash dhexdeeda ku jirta iyo lafta dhexdeeda sheegay marka dalka waxba lagama qaban karo dhakhtarintii ugu dhahan gabadha bura madaxa kaga taalay buradaas oo ku taalay lafta hoosteeda ka baxday maskaxdana dusha ka saareyd muddo ay qabtay aan la dhibaataysnayn iyada dhib ku ahayd qalal ku rido marba ay dhacasay oo aanu meelaan dalka waxba loogama qaban karo ayaa markii dambe ilaahay wuxuuna tusay nin oo sideedoo kale ay ku dhacday xanuunkaas ku dhacay oo uu gaaray heer u qalalo isku kaajo oo uu gaaray heer cadalkiisu isxidho ninkaas ayaa wuxuu yimid Soomaali Suudaaneys nin la yiraahdo Dr. Cabdicasiis Cabdilaahi Xuseen uu yimid waxa la waa lagu qalayaa waa la qalay ilaahay waa ku guuleeyay sida gabadhaas oo maskaxda ayay ka saareed bahashaasi uu ku guuleystay anoo meel aan u dhaqaaqnaan la baa ninka waxaanu iska helay uu noo sheegay ninkii baan u tagnay qaabkii loo qabanayo oo qaabka gabadhaba ka sii xun buu noo sheegay waa wuxuu yidhi halkaasaan laygaga guuleystay caafimaad wakaasoo hal xabba ma qabo suuqaasaan ordayaa gabadhii halkaa geeya waan meeshii baan nimid waxaan u nimid doctorkii meesha joogay Soomaali Suudaaneys hawshii iyo cajalkii uu saaray markuu arkay gabadha wuxuu yidhi waa ku guuleysanayaa gabadha wuu qalay wuxuu ka soo saaray buro weelkii isbitaalka yaalay ee dadka burooyinka ama dhiigga looga qaadi jiray ay qaadi waayeen oo carwana looga diray inaan ka soo qaadno weelkii lagu qaadinay weyne intay ka qabto waa ku guuleystay ilaahay ilaahay baa mahadle waa lay qalay buraa layga qalay maskaxda iyo lafta dhexdeeda ku jirtay Soomaali Suudaaneys baa laygu qalay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waan fiicanahay alxamdulillah Dr. Cabdicasiis baa qalay ma sha Allah maanta xanuunkan dareemayay waan ka ladanahay alxamdulillah burooyinka dadku la dhiban yihiin kuwa oo ka fudud oo dadku la dhiban yihiin baa jira tan waxay ahayd kuwa aan caadi ahayn oo maskaxda labaduba saaraayeen tan gabadha waa lala yaabay feerkayga leekayd oo maskaxdeeda dhakadeeda saareyd wuu ku guuleystay ilaahay baa mahadle isagana waa u mahad celinana gabadhina waatan waa caafimaad qabtaa maanta waan saarayaa waxaan ugu baaqayaa dadka oo la dhibaataysan burooyinka iyo waxyaalaha noocaasa hala soo xiriireen Soomaali Suudaaneys ninkaasaa jooga ha ka faa'iideysan arrinkaas waxa weeye wax badan oo maanta ayaan filayn buu ka qaban doonaa ayaan dabadna u aadi karin oo isagu wixii dabadda loo aadiyo dalka gudihiisa ugu qabanayo gacantu gaadhayso